Macallimad indhoole ah misena boqolaal arday ah wax barta oo dad badan ka yaabisay caalamka cajiib. Si aan u gadagalno muuqaalkan walaal waxaanu kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan, share garayso si saaxiibo badan u gaaro, sidoo kalena aad kusoo biirto page-kan Cabdikariim Macali Aadan. Mahadsanidin badan. Macallimad indhoole ah ayaa haddana waxa ay wax bartaa in ka badan boqolaal arday ah, taasi oo dad badan ka yaabisay caalamka isla markaana baraha bulshada qabsatay. Macallimadan ayaa waxa ay dhalatay iyadoo aragga naafo ka ah ama indhoole ah, balse taasi kama hor istaagin in ay safarkeeda nolosha ay si caadi ah u wadato maadaama waalidiintii dhalay ay geeriyoodeen. Markii ay yareed ayay waalidkeedu horey waxay oga caawiyeen waxbarashada, balse markii ay weynaatay uma suurtagelin in ay jaamacadda ay rabtay ay dhigato maadaama deegaanka ay ku nooshahay aysan jaamacadi ku oolin, balse waxa ay ku tala gashay kuna dadaashay sidii ay online-ka wax uga bara lahayd, iyadoo kaashanaysa laptop-keeda oo luqad ahaan ay ku fahmayso. Waxa ayna si fiican u baratay luqadda Ingiriiska, taasi oo in badan ka caawisay waxbarashadeeda. Heerkeeda waxbarasho marka laga tago, macallimidan aragga naafada ka ah ayaa waxa ay haysataa oo ay dhashay hal gabar, iyaduna waa indhoole kale. Sidoo kale macallimada waxa ay si maalinle ah u qabataa karinta raashinka, dhaqidda dharka, dhaaminta biyaha xaafadda, iyadoo dhinaca kale ah macallimad luqadda Ingiriiska ka dhigta tuulada ay degan tahay iyo iskuulka halkaasi ku yaalla oo arday badan ama boqolaal arday ahba ay si maalinle ah xiisad u siiso, aadna ay ugu fiican tahay dhigista iyo ku hadlidda luqadda Ingiriiska. Gurigeeda ayay si maalinle ah maalin waliba marka ay shaqada dhammayso u lugaysaa kana soo lugaysaa, iyadoo aysan jirin cid la socota. Waxa ayna hadda gacanta ku haysaa nolosha gabadheeda yar iyo teeda, maadaama aysan jirin cid kale oo kaabta iyada, odaygeediina uu horay u geeriyooday. Waxa ayna sheegtay in ay aad u jeceshahay in ay wax badan barato, cilmigeedana ay siyaadsato. Ardaydeeda ay iskuulka u dhigto ayaana aad u jecel marka ay xiisadda luqadda Ingiriiska ah siinayso amaba ay xiisadda u soo gasho iyagoo soo dhaweeya. Macallimadan aragga naafada ka ah ayaa dadka kula talisay in qofka dhibka haysta ama jirkiisa qaybo ka mid ah haddii uu naafo ka yahay uusan isdhiibin, isla markaana uu wax qabsan karo, loona baahan yahay in uu wax qabsado intii beddelkeed uu dad baryi lahaa. Macallimadan ayaana muddooyinkii dambe waxa ay qabsatay baraha bulshada iyadoo dad badan ay dhiirigeliyeen.